COVID-19 waxa uu ku faafaa marka qofka cudurka qaba uu hadlo ama qufaco ama hindhiso oo dhibcaha ka soo baxa neefmareenkiisa ay gaaraan qof kale. waxa kale oo ku gudbi karaa marka dadku taabtaan gacmahooda meel kale oo jeermis saaran yahay kadibna gacmahooda oo xambaarsan ay ku taabtaan indhaha iyo afkooda. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرضي ومركلة يا دمستيركا chapter كني أها introduction to biotechnology هرا وحنو سوق هذا ناي إن كسر هذا الناي محيطاي biotechnology أنت برانجي أما قيبو أما تايبيس أو ككوبن يهاي sidoo kale waxaan hore u soo baranay taariikh kooban cilmiga kani biotechnology-gu inuusan ahayn wax cusub balse uu la soo jaan qaaday nolosha bani aadamka waqtiyadii hore iyo waqtigan casriga ah inagoo dhahnay traditional iyo modern waayahay waxaynu diyaar noo ah isla chapter-keeni saddexaad qaybta applications of biotechnology waxyaabaha lagu dabaqo marka aynu adeegsanayno biotechnology sawirkana waxa idin kaga muuqdo dabcan yogurt oo ah caanaha fadhiya ee loo adeegsado inta badan dadka doonayo in ay helaan protein dheeraad ah inay isticmaalaan sidoo kalena waxa darbigeena sawirka inooga muuqdo sawirkaasi inooga muuqdo roodi kaasoo aynu ku baran doono maanta labadan cashir ee kala ah yogurt formation iyo baking bread content iskani sida idin kaga muuqdo dabcan waxaynu ku qaadanaynaa application of biotechnology oo ay ka mid yihiin sida loo sameeyo yogurtiga as well as waxaynu ku baranaynaa sida loo sameeyo cheese burcadka ama sida u taqaanid farmaajada waxaynu kaloo ku baranaynaa yogurt bread baking bread roodiga sida loo sameeyo ugu dambeyn waxaanu ku qaadan doonaa antibiotic production gaar ahaan penicillin sida loo soo saaro penicillinka way aynu ku hormarnay sameynta yogurtiga yogurtigu dabcan waa caano fadhiya caanahaasina waa stage marxalad waxay ku imaadeen ay dhacday fermentation khamiirin oo maxaa la khamiiriyay fermentation of milk marka caanaha la khamiirinayana fermentation kaasi waxa ka qayb qaato certain species noocyo sinjiye ah oo kamid ah bacteria oo caan ku ah magaca loo yaqaano lactic acid bacteria oo loo yaqaan lactic acid bacteria this lactic acid bacteria laba nooc ay noqon kartaa nooc la yiraahdo streptococcus iyo nooc kale oo dabcan aynu ku arkeyno slide-ka ku xigo this bacteria-dani magaca lactic acid waxay ku qaadatay ferment lactose waa sokorta ku jirta caanaha the milk sugar in milk ayaa ay khamiirinaysaa waxayna ka dhigaysaa into lactic acid kaasuna wuxuu caanaha u keenayaa isbeddelka duleed the physical change and a chemical change isbeddelka kiimikeed ee caanaha ku dhacayo ay hadhow noqon doonaan wax adka xigeen ah semi solid and sour taste lehna dhadhan dhanaan waxaan fahanay in marka la sameynayo yogurtigu khamiirintiisu ay ka qayb qaadato bacteria la soco halkaasi laba noole ayaan isticmaalaynaa laba microorganism ayaan isticmaalnaa waa yeast oo ah fixisada ama khamiirisada ama leebitada oo ayaan u adeegsan doonaa markaan roodiga sameynayno iyo sidoo kale bacteria la yiraahdo lactic acid bacteria aan u adeegsanayno markaan yogurtiga sameynayno iyo cheese-ka farmaajada markaan sameynayno waayahay sida idin muuqda dabcan nooca bacteria-da ee species-ka aan sheegnay waa laba nooc lactobacillus inay tahay iyo inay tahay streptococcus labada nooc ee bacteria-da lactobacillus maxay inoo sameysaa lactobacillus waxay sameyn doontaa sokorta lactose sugar ayay change waxay u bedelaysaa into lactic acid
waxay u bedelaysaa into lactic acid waayahay sidaa noo muuqdo dowrka ay ku leedahay bakteeriyadu waa in ay noo sameyso in caanuhu ay yeeshaan dhadhamada dhanaanka soor testiga inay isbedelaan wax adag ay noqdaan haddaba aynu u soo gudubno tallaabooyinka la maro marka la sameynayo yogurtigu tallaabada koowaad ee sameynta yogurtigu waa in la keensado qofka uu helo caanahaas halkee laga keenayaa waxaa laga keeni karaa from a cow sac goat or a sheep ama neef laxa oo idaha ka mid ah intaba waa laga keeni karaa waxaa caan ah laakiin yogurtiga ugu badani from a cow milk caanaha looda ayaa laga keenaa muuqaalkaasi animationka ay dhaqdhaqaaqa kani wuxuu inoo caddeynayaa sawirka sac laga lisay caanihiina kadib lagu shubay burshada aynu yogurtiga ku sameynayno qaybta loogu talagalay in caanaha lagu shubo waxaana kow muhiim ah in lagu sameeyo sterilization saacaasi waxa laga qaaday caanaha kadibna weelkii lagu shubay sterilize waxaa inoogu xiga steepka koowaad caanaha ayaan soo qaadanaynaa kadibna steepka labaad the milk is pasteurized caanaha waa la karkarinayaa waxaana la karkarinayaa 85 to 95 degrees centigrade 85 ilaa 95 degrees centigrade ayaa la karkarinayaa weliba muddo dhan 15 ilaa 30 daqiiqo bal aynu aragno iyadoo la sameynayo sida tani qalabkeenan warshada aan ku soo saarayno yogurtigu waxa inoogu dhagan saacada heerkulka inoo tilmaamayso waxaan geynay 85 ilaa 95 degrees centigrade caanahaasi waynu karkarinay waxa su'aalaha arday hadaba why sabab maxaynu u karkarinaynaa caanaha si toos intaan qaadano maan warshada u sii gudbina qaybaheeda kale hadaba jawaabtu maxay noqonaysaa is leedahay dabcan waa laga dilayaa bakteeriyadii dabiiciga ahayd ee awal ku jirta caanaha sida ognahay caanaha looda mar walba waa la karkariyaa waxaa laga heli karaa bakteeriya badan sida mycobacterium tuberculosis-ka ee TB-da sababta laga heli karaa sidoo kale natural bacteria hawada ka soo raacda ku jiri karto caanaha waynu karkarinaynaa heerkulkaas aan gaarsiinaynaa waxaan dhahnay steepka koowaad caanaha soo qaadanaynaa labo maxaan niri waan karkarinaynaa pasteurized sababtana maxay tahay inaan bakteeriyada ka dilno okay steepka saddexaad marka aynu sameynayno yogurtiga waxa kale ma sameynayna milk is homogenized caanihi ayaan maadaama ay ahayeen ay large molecules ee ka koobnayd caanaha ayaan isdhexgelinaynaa homogenization ayaan sameynaynaayo waa isku dhexmilaynaa hal isku kaana ka dhigaynaa isku mida qalabkani wuxuu inoo sameynayaa sida kaaga muuqdo waxa uu isdhexgelinayaa caanihi aynu soo qaadanay steepka labaad waxaan dhahnay why marka hadaba laftirkeeda haddaa isweydiisid maxaa caanaha la isu dhexgelinaya in large moleculeska loo bedelo into soluble molecule aad u yaryar steepka afaraad ee marka la sameynayo la doonayo in la sameeyo yogurt waxaa loo baahan yahay in caanaha la qaboojiyo maadaama aan marka hore gaarsiinay intee gaarsiinay 85 degree ilaa 95 degree centigrade hadda markaani waan qaboojinaynaa hoos ayaan u dhigaynaa waxaan gaarsiinaynaa 40 ilaa 45 haddaba fiirso daawo habka hoos loogu dhigayo saacadda waxay awal taagnay 95 degree centigrade haddana waxay hoos u soo dhacday 40 ilaa 45 degree su'aal marka arday waxaad isweydiinaysaa markii hore caanaha waan karkarinay sababtuna maxay ahayd inaan ka dilno natural bacteria laakiin marka kani maxaan u qaboojinay oo danteenu maxay tahay why weydii su'aashaas maskaxdaada weydii haddaba jawaabta inaad heshaa laga yaabaa maskaxdaada waxay noqonaysaa sida tan waxaynu u qaboojinay to start culture of bacteria marka kani waxaan rabnaa bacteria cusub oo annaga aan ku dari doono oo shaqada inoo qabato aan doonayno cultureskeeda inaan bilowno beeristeeda oo ay shaqada inoo qabato si shaqada u qabato haddaan 95 degree bacteria ku darno way dhimanaysaa bacteria shaqada aan rabnana noma suurtagelayso si ay noogu suurtagasho marka waan qaboojinaynaa steepka afaraad waa yahay haddaynu ka soo gudubno qaboojinta steepka afaraad waxaan u gudbaynaa steepka shanaad ee sameynta yogurtiga bakteeriyadii ayaan ku daraynaa lactic acid bacteria aanu naqaane oo labadii nooc species kala duwanaa aynu soo baranay lactobacillus iyo streptococcus midaan rabnaa ayaan adeegsanaynaa sawirkaani si fiican u fiiri waxaa la soo qaatay bacteria waa lagu daray muuqaalkaasi idin muuqdo animationka ah waxaa la siiyey muddo in ay fermenti sameyso khamiiriso oo shaqadii ay noo qabato change ay noo bedesho
lactose sokorteeda caanaha ku jirtay into lactic acid. Lactic acid kaasna sababtan ka rabna waa maxay? To make milk sour taste inay inooga dhigto iyo physical kana muuqaal ahaan wax adag inay ka dhigto semi solid ah oo adka xigeen ah. isweydiye ardayo maxaan bacteria ugu darnay? haddaan maskaxdaada dib u celiyo, bacteriyadu ma ahan kaliya inay tahay bacteria harmful ah, balse waxaan soo baranay in bacteriyadu ay ku jirto kuwa helpful ah oo beneficial ah, faa'iido inoo leh. marka aan qasanayno cajiinka habeenkii cajiinka la qasayo, sababtay cajiinka noogu khamirto waa bacteria ka qayb qaadatay. wax badan oo bacteria caloosheenna large intestine-keena waxaa ku jirta xiidmeena qarada weyn bacteria ku jirto oo inoo keento vitamin K oo nala ah mutual friendship, saaxiibtinimo, symbiosis oo naga dhaxeeyo. haddaba tanina waa mid faa'iido laho why aynu u sameynay sidaas. sababta aan lactic acid bacteria ugu darna waxay tahay to convert inay bedesho lactose sugar, sokorta lactose-ka ah into lactic acid inay ka dhigto. mar labaad coagulate xarkajin ama xarkagin inay xarkajiso ay adkayso milk protein, proteinka caanaha ku jira ee la yiraahdo casein in laga dhigo mid adag. labadaas bacteriyadaani doorka ay ku leedahay. su'aasha lagu weydiin karo waxay tahay waa maxay doorka ay lactic acid bacteria ku leedahay in yogurt production? labadaas shaqo, to convert iyo to coagulate. thank you. waxaan u gudbaynaa stepka 6aad ee ugu dambeeya, ama hal step ayaa ka dambeeya oo la yiraahdo yogurt scalded. markaan waan qaboojinaynaa, waliba waxaan geenaynaa qaboojin meeshii ugu hooseysay ilaa 5 degree. haddaba intee ka keenay soo xasuuso? 45 degree ayaan ka keenay 5. waxaa la sameynayaa bacteriyada inuu shock ku dhaco oo shaqadeedii ay joojiso, iyaduna ay ku dhimato. sababta markii hore waxay la qabsatay heerkul sare, markaan qabow aad u badan la gaarsiiyay. arintaasina waxay keenaysaa in bacteriyada aan u qaboojinayna stepkan 6aad to stop bacterial growth. bacteriyadu saan ognahay waxa ay ku kortaa warm place, meelaha diirimaadka leh. si marka bacteriyada ay u joojiso shaqadeeda, qabow hoose ayaan geynaynaa oo 5 degree ah. halkaasina waa bacteriyada waa ka dhamaysanay hadafkii aan ka lahayn oo way noo bedeshay. stepka ugu dambeeya ee 7aad, yogurtiga caanihii fadhiyo way noo diyaarsan yihiin oo adke oo diyaarsan lehna dhadhamadii loogu talagalay. balse bini'aadamku waxaa jira qof waxa uu jecel yahay nooc ka mid ah fruitska, ama strawberry, cinabka, mooska, noocba qofku uu jecel yahay. flavoring waa la carfinaya, waa la macmacaynaya, fruits ayaa lagu darayaa. sida idiin muuqdo mashiinka caanaha ayuu soo saaray, kadibna waxaan ku darnay flavors. hadda kan waxaan u isticmaalnay strawberry, cinabka ayaan isticmaalaynaa. halkaasi waxaa inoogu dhan qaybtii 1aad ee cashirkeena ee ahaa sida loo sameeyo yogurtiga. haddaba exercise-kiisu wuxuu noqonayaa sida tan soo socoto. exercise adigoo fiirinayo tallaabooyinkan ee lagu soo saarayo yogurtigu idoo ku muuqdo, isku day su'aalaha dhinac yaal inaad ka jawaabtid arday, oo ah maxaynu caanaha u karkarinay stepka 1aad aynu u gaarsiinay heerkul gaaraya 85 degree centigrade before production of yogurt intayna soo saarin ka hor? waxaan filayaa jawaabta inaad ka heli doonto cashirka qaybtiisa hore. haddaba mar labaad, why milky escaped temperature 40 degree centigrade? mar maxaan u gaarsiinay heerkulka dib ugu soo celinay 40 degree? maxaynu u gaarsiinay? ugu dambeyn maxaynu u qaboojinay ilaa aan ka gaarsiino 5 degree sida kaaga muuqdo jadwalka dhinacaaga? jawaabuhu dabcan waa dhankiina. cashirkeennii 2aad qaybta samayn application of biotechnology halkaas ayuu inoogu dhan yahay. waxaynu u gudbi doonaa mar kale hadduu ilaa yidhaahdo cashirka xiga. baarista xilli hore waxa ay yaraysaa faafidda cudurrada sida duumada iyo covid. qaadashada wakhti hore ee daawada malaariyadu waxa ay yaraysaa xanuunka oo gaara heer khatar ah ama dhimasho iyo u nuglaanshaha covid-19.